عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله تعالى مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. bini aadamku qofka bini aadamka maxay ku qiimeeyaan? ilaahayna caza wajalla addoommihiisa muxuu ku qiimeeyaa? basharka kale maxay ku qiimeeyaan? ilaahayna caza wajalla addoonkan bini aadamkan basharka maxaase ilaahay agtiisa qofka bini aadamka lagaga qiimeeya ayuu qiimo ku leeyahay? innaku waxaan nahay indha ku garadlayaal. waxaan arkaynaa laga yaabaa inaan qofka bini aadamka ku qiimayno dhaqaalaha uu leeyahay in lagu qiimeeyo, daarta uu leeyahay in lagu qiimeeyo, aqoonta maadiyeed ee qofku leeyahay in lagu qiimeeyo, reerka uu ka dhashay in lagu qiimeeyo, mansabka uu ku fadhiyo in lagu qiimeeyo. waa aragtida qofka bini aadamka ee zamankan weliba jooga xilligan. laakiin sharcigu qofka bini aadamka muxuu ku qiimeeyaa? sharcigu qofka bini aadamka waxa uu ku qiimeeyaa waxa weeyaan alla ka cabsi weeyaan. aayaddii qur-aanka een akhrisanay ee ku taallay suuratu alxujuraat, ilaahay waa kii lahaa: yaa ayuha annaasu dadow. khitaab caama weeyaan oo ilaahay baa dadkao dhan la hadlaya. innaa khalaqnaakum min dakarin wa unthaa, annakaa ini abuurno ini samaynay baa ilaahay yidhi, oo waxaan inaga dhignay lab iyo dhidig. wajacalnaakum waxaan inii yeelay shucuuban shucuub wa qabaa'ila iyo qabaa'il litacaarafuu si aad markaa isku garataan. laakiin waxaad ogaataan baa ilaahayna leeyahay: ina akramakum cinda allahi atqaakum. kiina ilaahay agtiisa inigu maamuus badan ee inigu sharafta badan leh waxa weeyaan waa hadbay kiina inigu alla ka cabsiga badan leh. ina allaha ilaahayna koreeya caliimun waa og yahay. uu og yaho ilaahay uu yaqaana, waana khabiiroo ilaahay wuu og yahay. sharcigu qofka bini aadamka wuxuu ku qiimeynayaa maahin qabiilkiisa, maahin dhaqaalaha qofka uu haysta. waxaa lagu qiimeynayaa qofka bini aadamka wuxuu sharcigu ku qiimeeya waa alla ka baq. hadba intuu qofku alla uu yaqaano ayaa ilaah agtiisa qofka laga qiimeyn. nabigeena calayhi salaatu wasalaam baa lagu yidhi: nebi allow dadka ayaa ugu maamuus badan noo sheeg. markaa buu nebigu yihi: atqaahum, kooga ugu alla ka cabsiga badan la unba alla agtiisa ugu maamuus badan. markaasay saxaabadu ku yidhahdeen: laysa can hada nas'aluka, xagga maaha su-aasheedu waxay u socoto. markaa buu nebigu ku yidhi: fa yuusufu nabiyullah ibnu nabiyillaah ibnu nabiyillaahi ibnu khaliilillaah. haddaad xagga nasabka aad i weydiiseenna, dadka qofka ugu maamuusta badan ee ugu sharafta badan waxa weeyaan waa yuusuf calayhi salaam. isaguna nebi buu ahaa, aabihiina nebi yacquub buu ahaa, awowgiina nebi isxaaq buu ahaa, awowgiisii labaadna wuxuu ahaa nebi ibraahim oo ilaahay khaliilkiisii buu ahaa. markaabay haddana ay yidhaahdeen: laysa can hada nas'aluka, taas maaha waxaan u jeednay een ku weydiinayno. markaa buu nebigu ku yidhi: fa can macaadin alcarabi tas'aluunii, ma carab macaadinteedii miyaad ii weydiinaysaan? kuwoogii ugu macdanta fiicnaa ee ugu dadnimada fiicnaa
إلا بن آدم كإلهي عز وجل سيدا دولك إلهي أوكل فضلي dhagaxdu u kala qiimo badan tahay dhirtuna u kala qiimo badan tahay dhulkuna u kala qiimo badan yahay ayaa bini aadanka laftigiisuna waa macaadin buu leeyaho bini aadanka ilaahay baa kala fadilo way kala qiimo badan yihiin way kala akhlaaq fiican yihiin way kala caqli badan yihiin way kala cilmi badan yihiin way kala qurux badan yihiin way kala dhaqaale badan yihiin way kala awood badan yihiin way kala diin fiican yihiin dadku انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا إلهي بأن نقول إيق وبالفيري سيدا بني آدم كأنو كلا سريسيني كلا سريسين تن بني آدم كلا سريسيي أي حكمة دردنا نولش أدويد وأي كتاقن تهي ويان وأيضاتك هدي لقدق لها هل طبقو نولش بني آدم كمركا قيمة معنى ميالتين وحي نولش قيمة كل هذا هي وحي ويان marka laga dhigay in maalqabeena ayaa laga dhigay in fuqara baa laga dhigay in cadaan baa laga dhigay in madow baa laga dhigay in lab baa laga dhigay in dhidig baa laga dhigay in dad wax yaqaan laga dhigay in dad aan waxba aqoon baa laga dhigay in waxa laga dhigay dad beeraha fasha ayaa laga dhigay in xoolo dhaqata laga dhigay in ganacsata ayaa ilaahay ka dhigay walaw basata Allahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard walakin yunazzilu biqadarin ma yasha إلهي بعز وجل لحدان بني آدم كأرزاقه واسعين لهين ويوضقوق لهايين بإلهي وكبر لهايين لكن وحول بقدر يقياس من أدونك دوشي هذا كسو دجيني بإلهي مركب بني آدم كان آيال ليدي إساق لفتقيس صدر لكم معادن أوليه كالقيمة بدن آيا بني آدم كلفتقيس معادن كالقيمة بدن بوليه مركب النبي يقول من معادن تي عربيات بدنك يويدين إنسان سيدا عربي أكل قيمة في عنيد أكل الدنما في عنيد ماذا يويدين إنسان خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا زمن جاهلي يكوي أقو خير كبدنا با مركي دين إسلام كسوق لنا أقو خير بدن بو نبي يقول وحدي دتكو مركا أي دين يكون أي فهمان بو نبي يقول عليه الصلاة والسلام زمن جاهلي كي دلقات كبدنا مركو إسلامنا dulqaadkiisii diinta islaamkuna way sii qurxinaysaa zaman jaahiliga kii inagu akhlaaqda wanaagsana islaamnimada marka uu soo galana akhlaaqdiisii diinta islaamku way sii qurxinaysaa ayam jaahiliga kii inagu amaanada fiicna markuu diinta islaamka uu soo galana amaanadiisii qurux iyo qiime diinta islaamku u yeelaysaa zaman jaahiliga kii inagu deeqsisana diinta islaamka marka uu soo galana deeqsinimadiisii diinta islaamku waxunba u kordhinaysaa sharcigu marka qofka bini aadanka waxa uu ku miisaama uu ku qiimeeyaa waa hadba qofkani intuu alla ka cabsanayo ayuu qiimo leeyahay ilaahay agtiisana intaa buu qiimo yeelan bini aadanka agtoodana qofku waxa uu qiimo yeelanayaa hadba intuu qofkani akhlaaq wanaagsan yahay hadba intuu qofku alla ka baq u leeyahay alla yaqaano uu alla yaqaan uu yahay أي قفك بني آدم كو أدونك دوشي هذا بشر كأكتيدنا قيمة كويالا شرعك مركا قفك بني آدم كوحو كو قيمة يا وكو ميزاما ومحي ودين ألقى بني آدم كو بني آدم ككلمانتا عن كو قيمة إنو رقالة دارو ورشدو وقونت أدويدا منصب كقفك وجوغو وحيستو waxaa dadka maanta bini aadanka ay ku qiimeeyaan waxaan garan weynay bini aadanku isaga qiimo leh warshada qofka bini aadanka warshadu qiimo uma yeeshay qofku isaga warshad ka dhigo qiimo u yeelay lacagtu qofka qiimo uma yeeshay qofka bini aadanku isaga lacagta qiimo u yeelo markay bini aadan lacagtan inay isticmaalaan isku waafaqeen mid walba number iyo qiimo gaar ah u joogsadeen isku waafaqeen ayaa lacagtu qiimo yeelatay ma lacagta qiimo la mis qofka bini aadanka ya qofka qiimo leh laakiin zamankeenan qofka bini aadanka maxaa lagu qiimeeyaa lacagta lagu qiimeeyaa lacagta inaka qiimaha u yeelay hada qiimeeya lacagta wadan walba cumlad gooni u leeyahay lacagta wadanka Kenya wadanka kama shaqeysay wala badilan
lacagta waddankeena halkan kama shaqaysay waa la bedilan lacagta waddankana lagu bedilan oo lacagta waddankeenu maxay waddankan uga shaqayni weyday dadka waddanka ku nool lacagta waddankeena inay isticmaalaan iskuma waafaqine tooday samaysteen bay markaas isku waafaqeen marka bini aadanku lacagta isaga qiimaha u yeelay aqalka quruxda badan la waxa qurxiya waa bini aadam aqalka quruxda badan la bini aadan haday isticmaali waayaan aqalkaasi uu duugoobaya marka dambana uu dumayaa oo baaba'aya waxa aqalka qurxinaya qiimaha u yeelay qofka bini aadanka gaariga quruxda badan la waxa qiimaha u yeelay waa bini aadamka bal gaarigaaga adigu aad iibsatay ee jadiidka hal sano bal waa kaasi halka parkingka iska dhigo iskaga tag sidoo noqonaya bay kula tahay oo halaabi innaka marka qiimaha leh birtu maaha waxa qiimaha leh adaa qiimaha leh daarta maaha waxa qiimaha leh qofka bini aadanka ayaa qiimaha leh warshada maaha waxa qiimaha leh waa qofka bini aadanka waxa qiimo leh warshadu haday malaayin lacag soo saarayso oo bini aadan ayna ka shaqaynayn qiimo ma yeelanaysa ama qashan warshada adduunyada kaligeed iswada may bini aadankana qiimaha leh ogaada lacagta innaka qiimaha u yeelay warshadaha innaka qiimaha u yeelay magaalooyinka waaweyn innaka qiimaha u yeelay magaalada hadda aad joogtaan hadii laba bil oo kaliya bini aadanku ay isticmaali waayaan oo qof walba aqalkiisa uu fadhiisto wadooyinka laamiga geedaha ka soo wada baxaya booc ba ka soo bixiyo geed garwaa waxa qiimaha dhulka u yeelay waa innaka adiga marka maxaa qiimo ku yeelay in aadanow qalad baad ka fahamteen nolosha adduunyada qaladkan ka fahmnay waxa weeyaan waxaan u malaynay waxa aan soo sheegno inay innaka qiimo inoo yeelayaan xaqiiqatan waxaase annaku uma baahan bal waxa kale oo dhan innaka inoo baahan maanta lacagtu aday ku baahan tahay gaadhigu adigu ku baahan yahay gurigu adigu ku baahan yahay dibloomkaad wadato adigu ku baahan yahay dhakhtarka adigu ku baahan yahay warshadu adigay ku baahan tahay magaasaanku adigu ku baahan yahay bakhaarkaagu adigu ku baahan yahay adaa qiimo leh qaladka aan fahamnay waxa weeyaan waxaan u fahamnay qalad waa maxay waxa soo dhan baan u fahamnay bini aadanku inuu u baahan yahay dadna bini aadanku waxa sidoo u samaysan lahaa ayuu ilaahay ku caasiyay oo nabigiisa ku caasiyay oo aakhiradiisa ku seegay waxa uu leeyahay waxa oon helamay nolosheedu ma hagaagayso may noloshaada waxa dibadda ka yaalo oo dhan ilaahay nolosha bini aadanka kuma xidhin bini aadanka sharciga wuxuu qofka bini aadanka ku qiimeeyo ku miisaamay waa alla ka cabsi in dadku ilaahay ay ka baqaan in dadku ilaahay ay adeecaan in dadku ilaahay ay raali geliyaan in dadku ay u dhaqmaan ay u socdaan sidii ilaahay jeclaa inaad u socoto kulli kama uriidu akunu laka kama turiidu ba ilaahay yidhi ina aadanow sida anigu aan doonaya ii yeel sida aad doonayso annaka ku yeelano adduunka annaka ka talinay ba ilaahay ku leeyahay rasuulkeeni udgoona calayhi salaatu wasalaam oo saxaabadiisa qaar kamida ay hareera fadhiyaan ayaa nin baa halkaas soo maray nin qureysheed markaa nebigu ninkii ag fadhiyey buu ku yidhi war ninka halkaa maraya maxaad odhan lahayd markaasuu yidhi waa min cudamaa'i quraysh waa raggii ugu waaweynaayo ugu madaxyaweyntii ayuu ka mid yahay ninkani markaa buu sii sifeeyo wuxuu yidhi haye hadduu ninkaasi buu yidhi hadlo uu yidhaahdo ii kaalaya dadow dadkoo dhan hadalkiisa waa u joogsanayaan waa u imanayaan hadduu yidhahdo gabadh isiiyo reer intuu tago gabadh u weydiisto horaa gabadha laga siinayaa hadduu cid yidhahdo ha u shafaaco qaadido erga ha u noqotid ergadiisa horaa laga aqbalayaa markaa buu nebigu aamusay calayhi salaatu wasalaam haddana mid kale halkaas soo maro markaa buu nebigu ku yidhi kaana maxaad odhan lahayd bal ii sheeg markaa buu yidhi kani waa dadka muslimiinta kuwooga taagta yar leh ducafada hadduu hadlo cidna hadalkiisa dhagaysan mayso hadduu cid uu gabadh ka doono cidna gabadh siin maysa buu ku yidhi hadduu is yidhahdo cid u ergeeyo erge u noqo cidna ergadiisa aqbali mayso markaa buu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi wallaahi baan ku dhaartay buu yidhi kii hore oo adduunka laga buuxiyey kaa keliya ilaahay agtiisa ka qiimo badan buu rasuulku yidhi kii hore ee meesha mareed arkaysay
eed maadada ku sheegaysay materialka ku sheegaysay materialistic aha waa cudamaa quraysh buu waa quraysh ragii madaxweynta ahaa weeyaan hadalkiisa waa la maqli hadduu cid gabadh yiraahdo ii guuriyo hore looga guurin hadduu cid yiraahdo ha u ergeysa hore laga aqbali kana waa ducafadii muslimiinta buu ka yidhi cidna hadalkiisa maqli mayso cidna gabadh u guurin mayso cidna ergeysa yeeli mayso markaa buu nabigu dhaar intuu hormariyay buu yidhi wallaahi baa ku dhaartay kii hore oo adduunka laga buuxiyey kaa keliya ilagtiisa ka qiimo badan buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ina allaha laa yanduru ilaa ajsaamikum walaa ilaa suwarikum walaakin yanduru ilaa quluubikum wa acmaalikum ilaahay jidhkiinna ma eega buu rasuulku yidhi ilaahay suuraddiinna eegi maayo wa fii riwaayatin dhaqaalihiinna ilaahay eegi maayo ilaahay waxa uu eegayaa buu nebigu yidhi qalbigiinna iyo camalka jidhkiinna ka soo fulaya baa ilaahay eegayaa buu rasuulku yidhi qalbigaaga maxaa ka buuxa maanta ani qalbigayga maxaa ku jira qalbigeenna maxaa ku weyn qalbigeenna ma ilaahay baa ku weyn mise makhluuqa ku weyn qalbigeenna ma adduunyadaa ku weyn mise aakhiradaa ku weyn qalbigeenna ma camalka saalixa ku weyn mise shaqada dukaanka ayaa ku weyn qalbigeenna ma islaamnimadaa ku weyn mise qabyaaladaa ku weyn qalbigeenna ma aakhiradaa ku weyn mise adduunyadaa ku weyn bal nin walba naftaada xisaabe maanta adigu meesha ilaahay uu naga soo fiirinaya buu nebigu leeyahy waa qalbigiinnaas qalbiga ilaahay ma jeclo jacaylaankiisa ahayn inuu ku arka ilaahay ma jeclo adigu ma jeceshahay maalintii markaad shaqadaada ku maqnaato adduunyadaadii ee shaqo xalaala ka soo shaqaysid haddaad habeenkii gurigaada markaad ku soo hoyatid aad ugu timaado aqalkaagii iyo xaaskaagii oo nin kale la fadhida ka warran sideed noqonaysaa waa dhimasho aqalkii baad ugu soo gashay xaaskaagii oo nin kale maaragtaan halkaa uu kula baashaalay oo kula hasaawaayo ma yeelaysid ma qaadanaysid walilaahi almathalu laclaa ilaahay mithaalka uu ka sarreeyaa ilaahay ma jecla qalbigeenna jacaylo kale inuu ku arko inuu qalbigeenna meel kale u jeesto ilaahay ma jeclo war nebigeenni moxamed calayhi salaatu wasalaam oo nebiyu raxma ahaa oo qalbigiisa adduunyada ilaahay uu ka saaray ghiibada iyo xasadka iyo sifaadka xun oo dhan qalbigiisa laga safeeyey ayaa loo diiday hal daqiiqa inuu ilaahay halmaamaan loo diiday hal daqiiqo yahuuddu markay nebigeenna u yimaadeen ay ku yidhaahdeen asxaabulkahaf meeqa sane ayay godka ay ku jireen waxau nebigu ugu jawaabuu ku yidhi beri toolaan jawaabta ini siin doonaaye berri haynoo ahaato waxau nebigeennu halmaamay inuu yidhaahdo insha allah buu halmaamay nebigeennu inuu yidhahdo calayhi salaatu wasalaam daadna waagii markuu baryay bay u yimaadeen haye jawaabtii baan kaa rabnaa waxyigiima soo degin oo nebiga jibriil baa waxyiga u keenayey laanna shareecaddeenna islaamka hal mar iyadoo isku duuban oo dhammaystiran nebiga looma dhiibine shareecaddeennu waxay ku soo degtay 23 sano gudahood ayaa shareecaddeenna islaamku ay nebigeenna dushiisa ku soo degtay calayhi salaatu wasalaam daadna markaa jibriil baa ka maqnaaday haddana maalintii labaad bay u yimaadeen markaa buu ihi weli jawaabtii ma hayo igu soo noqda 15 maalmood iyo 15 habeen buu nebiga waxyiga uu ka maqnaa baa la yidhi uu jibriil uusan u iman gafka uu nebigu galay waa maxay keliya wuxuu halmaamay inuu yidhaahdo hee hadduu alla yidhaahdaa berri baan iiga jawaabiye meeqa jeer baan inagu ilaahay halmaamnaa ka warrama maalintii meeqa jeer baan ilaahay caasinaa meeqa jeer baan waxau ilaahay jeclayn aan ku dhex jirnaa markaana waxaan doonaynaa nolosha adduunyadayna noo wanaagsanatana waan doonaynaa marka 15 maalmood kadib baa waxyigu soo degay qaladkuu nebigu ku dhacay baa laga saxo lagu yidhi walaa taquulanna lishayin innii faacilun dalika gada ilaa an yashaaa allah wadkur rabbaka idaa nasiita waqul casaa rabbii an yahdiyanii liaqraba min hada rashada walabithuu fii kahfihim 300 siniina wasdaaduu 9 markaasaa jawaabtii yuhuuddu ay ka sugaysay qaladkii marka laga saxee lagu yidhi beritoola waxaa baan samayn doonaa hadhihin baa nebiga lagu yidhi ha odhan ilaa inaad tidhahdid hadduu alla yidhaahdo mooyaane meeqa jeer baan inagu ilaahay halmaamnay
markaasaa loo sheego lagu yidhi su-aashay ku weydiiyeen yahuuddu jawaabteedii xagga dambe nebiga laga siiyo lagu yidhi 300 oo sannadood 3 qarni iyo 9 sane ku nagaadeen godka ku dhaba lagu yidhi u sheeg waa taa jawaabtii nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam markuu jeelka ku jiray dadkii maxaabiista ilaahay jeclaysiiyey oo maxay ku jeclaadeen laba shay bay ku jeclaadeen marka hore dadka ilaahay buu ku xidhaayay marka labaadna xusnul mucaamala akhlaaq wanaagsan buu dadka kula dhaqmay akhlaaq wanaagsan marka hore wixii jeelka soo galo oo dhan dacwadu siinayay dacwadu maaha dacwadan masaajida laga bixinayo maaha dacwada nabiyadu waxa weeyaan meel kastuu nebigu tagaba hore shaqada diintu ka bilaabayay hadduu mujtamaca dhex joogana dadka alluu ku xidhaayay hadduu suuqa dhex joogo dadka ilaahay buu ku xidhaayay hadduu masjid joogo dadka ilaahay buu ku xidhaayay haddii jeel la geliyana jeelka shaqadii loogu talagalay unbuu ka qabsanayay waa shaqadee bani aadamka iyo ilaahay labada inuu isku xidho weeyaan shaqadiisu sifada labaad ee nebi yuusuf uu dadka kula dhaqmaayay waa sifadee xusnul mucaamala dadka jeelka uu kula jirana akhlaaq wanaagsan buu kula dhaqmaayay وخالق الناس بخلق حسن أخلاق ونكسن إلى ذاتك جيلك كشرو دندمان أي نبي يوسف كتعلق من لأن مركز قاركود رياضة أي أركان بمركز أوشيغن جرين مركز رياضة أتعبيرين جري لبا كميدا واكر رياضة مركز أعبر مدبايري وحنكم منام أنيقا أو ضبق وحن سدابوري مارتان اللحوح أيان مدى حيقا كسدا شنبرنا دو شيدا كعونيسا haadkuna dushayda ayuu ka cunayaa buu yidhi midna wuxuu yidhi anigoo boqorka casiir u samaynaya ayaan ku manaamoo casiir samaynaya sharaab eryadaa baan aragnay noo cabir bay ku yidhaahdeen markaa buu yidhi kii sharaabka samaynayay buu ugu cabiray riyadiisii adoo waxaad noqon doontaa kuwa boqorka u adeega ee sharaabka uu cabaya u shushubaad ka mid noqon doontaa buu ku yidhi kii kalena wuxuu ku yidhi adiga waa lagu dili waliba maydkaaga meel geeda intoo lagu xidho ood ku baktidid ayaa baktigaaga shimbiruhu haadku madaxaagu dhuuqi doonaa buu ku yidhi kii markaa riyada uu u fasiruu ku yidhi boqorkaad u tegaysaa adigu oo waxaad u samayn doontaa sharaabka ayaad boqorka u samaynaysaa kii buu markaa la hadlo wuxuu ku yidhi fadkurnii cinda rabbika boqorkii kollay agtiisa waad tegi doontaa waad ku socotaa waaniga manaamkii kuu cabiree qisadayda boqorka agtiisa ku soo qaada buu ku yidhi nin madluuma oo wax dembiya una samaynin lagu xidhay ayaa jeelka intaasna lagu iloobo waliba ninkaasi waa yuusuf binu yacquub weeyaane bal qisadayda boqorka agtiisa ku sheeg buu ku yidhi فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن 9 سنين بإلى هيدي شيطانك وحي اللوسيي ربكي إنه حصوصتو اللوسيي لبابا علماء المفسرين ويكون فسران قال وحير هذا ننكي خادمك أنقونا بقرك ولا اللوسيو نيكي ولا هالماميي قالنا وحير هذا مي نبي إبراهيم عليه نبي يوسف ربكي بو هالمامي لأن مخلوق بمدد يقرقار وكدل وعلى قصي تقصيره لقو جناحي 9 سنة أما 7 سنة كدوات إنه جيلك كسي جراء إلهي كو تقصيري بالليل سيدات أنيق غير كي قلبك وقود جيستا سيدات أنيق غير كي أدو تلسارتا سيدات أنيق غير كي باهد أدو قشيكتا أي النبي يوسف ليرس 9 سنين dhowr sannadood buu ku sii nagaada jeelkii waa 7 8 9 qiyaastii intaa bay culimmadu ku qiyaasaan waa nebi hal mar keliya ilaahay iloobay ayaa lagu ganaaxoo la yidhi maaragtaana jeelkaad ku sii jiraysaa inagu meeqa jeer baan ilaahay halmaamnaa maalintii meeqa jeer baan ilaahay caasinaa idan meesha ugu horraysa إلهي ونجا يا قلبك واحد كلية لو أقول هاي ومحي كلمة التقوى كلمة التوحيد وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وزينه في قلوبهم إلهي بقرانك كشك أولئك هم الراشدون ما شاء الله دونا يا إيمانك إنه قالوا
وقلبك ويان ولما يدخل الإيمان في قلوبهم ولي إيمانك قلبك ذا مجارين بالليري إيمانك ما شاء قال ولا إله إلا الله إيمانك وحويان وحقيقة التقوى حقيقة لا إله إلا الله ما شاء أي كشا وقلبك ويان قلبك سوى عرشك إلهي بعلمة ولادان إلهي عبسديسا إلهي محبديسا إلهي حصوصتيسا موياني جعلك لقلبك إن لقو أرك إلهي ما جعله قلبك إن مركي كجرت لا إله إلا الله جرك إن وحا كسو فولي سبالي ومحي محمد رسول الله سنة النبي عليه الصلاة والسلام إنها تقول لك وحا كاكينا يوامرك إيمانك قلبك كوغلو لبدا كلمة ولا بجز لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله قلبك يدقيسا كل كان محا صوبحايا وحا صوبحايا مركا نولشاد وحا كصوبحايا اتباع نبينا عليه الصلاة والسلام شريعة الإسلام كمركا قفك بني آدك وحيكون ميزاميسا كو قيمينيسا والله بدا شيء إخلاص اتباع إخلاص اتباع والله ويدي نبينا عليه الصلاة والسلام والله قيري دتك انتو دبدا جنة قليد يدا محاكم متيستان الله كعبسي يدا بعد وناك برسولك يري الله كعبسك وإخلاصك دبعد وناك سنة ونرش نبي محمد وإنك لعلى خلق عظيم وك إلهي قرآنك كيري لبدا بيقفك بني آدم كشريعة وأيكو قيميسان عهدك نبينا عليه الصلاة والسلام إذن نبيك أصحاب تيسا كمقالة تشوغا إيا كميقة تشوغا كشريفكا إيا كماركتاني ضعيفكا انتو بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم أصحاب تيسا وذا جعلا زاهر بن حرام صحابي اللي أورنجري مقالة مدينة ميقة يدو دقنا نكاسرين رير باديوس كاها وولي بالذميم عن قروح بدنين مر اللي مرقوا مقالة المدينة وإيمانا ينا هديت بنبي نوسو قاد جري عليه الصلاة والسلام هديت الرير ميقو أي باديها ككينان سيده هيلي بك إيو عانها إيو صبق إيو ملبك إيو وحابو نبي وكين جري هديته رسولكنا وحو أسي ديارين جري دادك الرير ميقو وحي مقالة وقباهن يهين بنبي نو ديارين جرو سين جري بالليلي مرمر مقالة مدينة أصحابته مركي هبيك يا قلدو دكو هويدان أساقي النبي اسكو هاري جري مسكيت كدحديدا oo ilaa saacado dhan bay sheekaysan jireen waayo nabigeenu عليه الصلاة والسلام ilaahay wuxuu siiyay tawaaduc nabi wuxuu haa ilaahay uu siiyay sifa cajiiba waayo muallim buha muallim dadku wax baraya rasuulku muallim saburad wax ku qora ma hayn muallim kitaab akhriyana ma hayn muallim wuxuu haa ummada dhex socdo oo risaalada nabigu dhaqan buu ku gudbinaya dhaqan waxa bini aadanka lagu saameyn karaana waa tabiicada bal waa tabiicada hadda dadka muslimiinta imika wadanadan u soo intiqaalay haday dhaqan islaamka ku dhaqmi lahaayeen gaalada aanu imanay si dhib yar bay diinta islaamka ku qaadan lahaayeen si dhib yar wala fadhi jiray nabigu ninka saacado dhan bay wada sheekaysan jireen istinaas waa maxay wehel buu u noqonaya qofka wehel wuu heshanayay markaabuu marmarka xayn jiro oran jiray kaale ila soo cashaa waa aniga waa nin reer baadiye ah oo waliba aan qurux badnayn oo miskiidka nabiga saxaabadu ay ku dhaafeen keligii ayuu nabigu oran jiray xaraam ya zaahir inna mari'a wa ana ila soo cashaynaysaa uu ka xayn jiray markaabuu nabigu oran jiray inna zaahiran baadiyatuna wa nahnu haadiruhu ba nabigu oran jiray zaahir ma darkaysan ha warimiga yagi annaguna reer magaalkiisii baa nahay rasuulku oran jiray عليه الصلاة والسلام zaahir ibn hiram maalin maalmaha kamida magaalada madiina ayuu soo galay suuqii buu markaa tago wax buu iibinayaa waxna suuqu ka iibsanayaa nabigeenuna عليه الصلاة والسلام suuqa madiinu soo dhax galay markaa buu arkay ninkii zaahir oo sii jeeda oo alaab iibinaya markaa buu nabigu xagga dambe kaga yimid indhuhu ka qabtay markaa buu nabigu adoonkan waan iibinaya iga iibsanaya
addoon nin xor ah oo addoon lagu sheego waa dhimasho ka xigaa ninkaas laakiin zaahir uu cadhooday markii hore uu diday low nin carabiya moogtahay ninka addoonnimo lagu sheeganaye markuu arkay gacanta haysa inay tahay gacantii nebiga cidda dhabarkiisa taaganna ay tahay nebi maxamed ayuu nebiga dhabarkiisibuu nebiga sidaa kursiga aan ugu tiirsanahay intuu kursigaa sidaan ugu tiirsaday nebiga dhabarkii laabtiisii ayuu nebiga jirhkiisa sidaas kugu xamaaruu yidhi yaa rasuul allah haddaad istiraadid iibi ayaa iga kaa iibsan buu yidhi anugu rakhiis baan aho lacag kuma fadhiya buu ka yidhi markaa buu nebigu yidhi yaa zaahir lasta bikaasidin adigu ma tihid buu yidhi nin maaragtaanay rakhiisa bal ilaahay agtiisa haali baa tahay buu yidhi haali aduu reer magaala adeerkaayoo baadiye ka yimid oo soo dhididoo 20-30 kilomitr soo lugeeyey hadduu dhunkashaas ku kaa dhadhajiye ma yeeli lahayd waa adeerka aabbaha la dhashay abtiga hooye la dhashay iga dheeroo baad odhan lahayd oo gacanta saabad u salaami lahayd ninkani nebi maxamed laabtiisii buu sidaas kugu xamaarayaa markaa buu nebigu u joogaa kama degdegin markaa buu nebigu soo qabsaduu leeyahay yaa zaahir ma tihid buu nebigu ka yidhi adigu rakhiis bal ilaahay agtiisa haali baa tahay buu yidhi haali walaalayaal dadka waxaa lagu qiimaynayaa oo shareecadda islaamku qofka ay ku miisaamaysaa ku qiimaynaysaa iimaanka iyo akhlaaqda iyo qiyamka wanaagsan iyo dhaqanka wanaagsan iyo caqiidada qalbigiisa ku jirta ayaa qofka bini aadanka diinta islaamka ku qiimaysaa cumar alfaaruuq radia allahu canhu wa ardaah khilaafadiisii waa markuu dowladda islaamku ay madaxa la soo kacday weeyaan khilaafadii cumar ee meel allii meesha saxaabadu ay gaadhaan bay qabsanayaan waddanno dhan bay furanayaan markaasaa magaaladii madiina martida u imanaysa cumar iyo wufuudda cumar u imanaysaa si loo kala joojiye la garan waayey markaasuu cumar wuxuu samaystay bawaab nin iridda u taagan buu samaysto markaa dadka martida u kala tartiibyo u soo kala hora oo sida loo soo kala horreeyey markaa loo soo hormariyo albaabka markaa waxaa taagan 3 nin oo quraysh raggii ugu madaxa weynaaya tunka weynaaya aba sufyaan iyo suhayl bnu camar iyo xaarith bnu hishaam ridwaan ullahi calayhim ajmaciin raggaasi waa raggii maka markii la galay bay soo islaameen bawaab ninkii iridda taagnaa ee cumar dadka u kala nidaaminayay ayaa waxa uu arkay bilaal oo soo socda markaa buu dadkii yidhi u banneeya bilaal waa bilaal alxabashi radia allahu canhu ardaah markaasuu yidhi yaa bilaal soo soco gal amiirka cumar uuba ku sugaya adiga soo soco baa ku yidhi raggii sidaabay isku eegeen annakaa ka horrayna bilaal markaa kii bawaabkaa yidhi fadhiista ininku fadhiya halkiinaas waa bilaal mu'adinkii nebiga weeyaan soo soco bilaal soo dhaaf cumar baa loo geliyey cumar markuu arkay bilaal fadhigu ka kacaa baa la yidhi waxa uu odhan jiray bilaal cumar markuu bilaal arko sayidkaygii bilaal baa yimiday buu odhan jiray qabyaalad iyo wadaniyad iyo isku qolaan nahay iyo isku reer baan nahay waa waxa dalkeennin baabiye innagana soo qixiyad qaxootiga la tihiin weyn qabyaaladdu halkaa maxayna keenay war ma bakistan iyo bangladesh bay nagu soo duujay mise innagaas soo saarnay asxaabta nebiga waxaan dadku ay yidhahdaan isku midab baan nahay iyo isku qolaan nahay iyo isku waddan baan nahay waxaa qalbigooda ilahay baa ka saaray markaasay ku xisaabtamayaan muslim shahaadati an laa ilaaha ila allah wa anna muxammadan cabduhu warasuuluhu hadda waan farxay markaan arkay imaamkiina tujinaya aad baan u farxay galabta maa sha allah runtii waxaan u malayn waa dadka waddankan soo maa ya ma xaggeeniiba waa yahay waan jeclaan lahaa inaan arki lahaa kuwa waddankoona tujinaya ya waa inoo imanayaan insha allah ku salliya rasuulkeenna 3 nin ee quraysheed markay arkeen bilaal oo laga hormariyey way xanaaqeen
أبا سفيان بحناقي ورياده هم بويري ماشي ولا نقول بهدلي بويري أنك ما أنت مكويا أنك الضومها النوعها أيا ولي بقدال أنت كيما دين لأنك هرمرين يا أنك قريش يريد لنقول جوجي مياه أبا سفيان بهذا الكوكب صباحي سهيل بن عمر باكويري أبا سفيان يا حارث بن هشام هذا عرون إنسان لفيه نوع عروض بوري أحبه عرون بوري يركن نكم بوابك البابك عمرو ديكتي هي نك اللي نجور مريا بلال ومع عرون كرتان لفيه نوع عروض لفيه نوع عروض وهاي بويري بلال هي إنك هل مربو نبي قدينته ونوبر نجم مكمر كيل الجوجي مكمر كيل الجوجي إلى نبي محمد مكة لقى صار عليه الصلاة والسلام نبي الأمي ماشي النبي محمد وكسر بحيل يري فازدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين وحنكو أمرنا موجب النبي اللي يري ولا إله إلا الله ومدى أبندقوا الشيك مشركين تانا كجي سبا اللي يري ماركا مكو نبي دعوة كبل أبي مالنتو نبي مكة دعوة كبل أبي ولا نوضا يرو دعوة الإسلام ونوبندق النبي مركلية بلال يا خباب يا عمار رجعنا ذاك الإنسان اللي نجهر مرينا يو مالين تاس يودك دجن إسلام لماذا إنكم مالين تاس هندبوا دعني بوكيدي هذا العرون إنسان عمرنا هو عروننا بواب كيسن يريد أوتاجنا هو عروننا اللي فيه نوع عروض بوكيدي مالين تا دبوا دعني ما أنت معها دبوا دعن ما أنت إنها يست ما أنت معها واحد دبوا دعني maalintuu nabi maxamed risaalada uu noo bandhigay ee waliba colaadii cadaawada aan ku qaadnay la dagaalanay ay ragani diinta islaamka u degdegeen islaameen buu ka yiri majliska umar ay neego hormareen baad arkaysaan laakiin waxaad ogeyn buu ku yiri maalka qiyaamahana darajada ay galeen iyo jannadii halkay nooga horeeyaan mana la gaari kareen buu ka yiri inaguna adduunyada ka hadlaysaan iyo xafiiska umar bay nooga hormareen baad ka hadlaysaan mid kaliyaad ku soo gaari kartaan bal inaad qiyaamaha meel ula joogsataan waa midee mujaahidiinta ciidamada shaam u baxaya ee diinta islaamka difaaciga ka qayb galaya ee dawladda islaamka ruqcadda islaamka ballaarinaya ee dacwadda iyo dagaal iyo jihaad iyo wixii loo baahnaa ee diintu u baahantay ka qayb galaya inaad raacdaan oo halka ku shahiidaan oo ku dhimataan oo nad Makka Madiina ku soo noqon baad ragga qiyaamaha meel aad ka arki kartaan ku gaari kartaan buu ka yiri aniguna halka waa ka dhaqaaqay joogi maayo shaam baan u baxayaa salaamada buu markaa Suhayl ibn Amr zamankaas waxa qofka lagu qiimeynayay oo shariicada islaamka qofka mar walba ku qiimeynaysa waa iimaankii amalka saalixa man kana yuriidu al-'izzata falillahi al-'izzatu jamii'a hada doonaysid guul inaad gaadhid guusha ayaa haya Allah baa inoo haya haddaad doonin nolol wanaagsan nolosha wanaagsan ilaahay baa ku haya haddaad doonin nabad inaad ku noolaato nabadgelyada ilaahay baa ku haya haddaad doonin arsaaqad baraka leh adduunka inaad ku hesho arsaaqada barakada leh ilaahay baa ku haya waliba ninka dhalinyarada waxa uu jecel yahay shaqo wanaagsan dhaqaale wanaagsan gabadh wanaagsan guri wanaagsan gaari wanaagsan dawlad wanaagsan dal wanaagsan ilmo wanaagsan ma jeclin war ma jeclin waxaasoo wanaaga maxaa kaa xiga ma taqaanaa inaad noqoto keliya addoon ilaahay oo wanaagsan intaasaa kaa xigta inaad noqotid maxay addoon ilaahay oo wanaagsan ilaahay inaad xidhiidh la yeelato lacag kuma xidhno salaada tukashadeeda lacag kuma baxdo soonka soomistiisa lacag kuma baxdo quraanka akhriskiisa lacag kuma baxdo مسكيتك فديgiisa lacag kuma baxdo diinta barashadeeda lacag kuma baxdo baryada ilaahay lacag kuma baxdo dhikrina sameeysan lacag kuma baxdo ma ku baxda waa free shariicada islaamka inta lacagta lagu xidhay waa in yaro kooban waa xashkiga cimrada iyo marka dacwada loo baxayo qofku lacagtiisa waliba uu qaato jamaacada ku raaco bil maali wan nafs waxa kale oo dhan u fiirso وفري با إلهي كاغا دغاي صلاه waa lacag la'aan soonku waa lacag la'aan salliga nabiga waa lacag la'aan istighfaartu waa lacag la'aan tawxiidku waa lacag la'aan quraan akhrisku waa lacag la'aan baryada ilaahay waa lacag la'aan
صونك سنين يا خميس للصومي ما العقبة كوبحدا بل وبالعكس بل العقتها بكو إلى السمي بقى ما أنت صومن تحي خرج بدل بكابي حمايو صوصدا ما أنت تبليغ بحثنا العكابي حميسو مركان أنا سفر هذا سوق له قرابتي يدتك حق جرود إنما أركان موقتها حافظين تي تجان وذات كيمة ومقيّة وذات كيمة ومقيّة مركان وضعك كنا ورنا خرج بدل ما نقبحها خرج كايرانا يا مركز إلهي دينك سو بحضور فهمتي حشكا تجيسا خرج كاد حشكا تجيسا ما عيد بتصير يسا مي وصهيد هذه ديارات هذه ماشي تكتدي إلهي بدو سو دوانيسا عبادة إلهي أردن وحلقة دقة فري انت بدن والعقل عن زكاة لفتجيجي dadka zakada bixiya boqolkii 10 maaha aqniyada marka loo eego fuqarada muslimiinta 10% ay noqonayaan haday ka yareynba waliba zakadii baa laga yiri hadaad zakka bixinayso waliba cidda ugu xaq leh inaad siiso waa ehelkaagaba waa dadka qaraabada adiga kuugu dhow salatu wa sadaqa bu nabigu alayhi salatu wa salaam waa cidda aan ka ahayn aabaha iyo hooyada iyo maaragtaanay iyo ilmaha dhashay iyo ilmaha si dhaleen iyo hooyada iyo wixii ka sareeya ama walaalka walaasha hadday dad baahan yihiin ba shariicadu ku leedahay iyo kaaba zakadii ku bixinaysa adeerka abtiga qaraabadaadii wixii liitay oo dhan baa lagu leeyahay iyo kaaba xaq u leeyahay soo dhaafinba laakiin aawe awoodii aan ku qabanayna taacada ilaahay iyo cibaadada ilaahay hal aayade asxaabtu ay maqlaan ayay ilaahay u dhawaanayeen si cajiib ugu dhawaanayeen aayadan quraanka markay soo degtay lan tanaalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wama tunfiqu min shay'in fa inna allaha bihi alim ilaahay bari lan tanaalu albir wa khayr dhammaantii wada gaari maysaan samafal dhammaantii heli maysaan baa ilaahay yiri ila dhaqaalihiina xoolihiina waxaad ugu jeceshihiin aad ilaahay dartii u bixinaysaan ka hor baa ilaahay yiri khayr ma bagaadhaysaan ba dhammaantii abu talha markuu aayada maqlay ayuu soo orday nabiga u yimid alayhi salatu wasalaam markaa buu yaa rasuul allah waxa igu maqala aayada quraanka maanta dushaada ku soo degtay xoolahan anigu aan haystayna markaan eegay xoolahan ugu jecel yahay waxay noqotay ee ugu qiimo badan beerta la yiraahdo magaceega bayruha waa beer halkee ku taala masaajidka nabiga muqaabilkiisa ku taala waa beer had fiican had macaan leh biyo macaan leh waliba salaada markuu nabigu uu ka baxo beerta intuu nabigu galo harkeedana uu harsanayay biyaheega macaan uu cabbi jiray beerta ka waramaysay qiimo leedahay beerta waxay ku taala madiinatul munawwara beerta waxay ku taala masjidka nabiga muqaabilkiisa ku taala beerta cidda isticmaalaysa biyaheega ee harkeedana ku nasanaysa waa nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam maca dalika saxaabigaasi muxuu yiri xoolahayga ilaahay isiiyay ayadaan ugu jecelahay waan bixiyay buu ilaahay dartii baan u bixiyay wanaageega iyo wixii khayr ku jirana ilaahay baa ka rajaynayna ku hele halka ilaahay kugu arka dhig oo bixi buu nabiga allah ku yiri inagu sadaqada markaan dhiibayno tayar misata badan lacagta Djibouti moogtahay qarba bira konton faran iyo 100 faran iyo 200 iyo 50 iyo 500 iyo afartaas bira iyo ku yar marka mid miskiina iskay ag taagay maalin masaakiintuna imika xariifiin bay noqdeen moogtahay ala koro waska bukhala baan nahayo lacagtii baan marka jeebka galiyo soo saaray gaarigana waan wataayo saason halkan uu traffic line ka joojiyay markaasaan soo saaro ilaa uu arkaya isagii moogtahay 500 marka way castaay 500 waa $2 iyo badh macnaha marka buu sheekh xawaaladii aakhiraan heeta badan isii dhiga buu ta badan isii sheekh ma yak fadhiyo warta badan naga sii buu naga haray naga sii war masaxo qaado waa ka khayr allah ku siiyay miskiin markuu wax ku weydiisto runtii waa xawaaladii aakhiro weeyaan iyo keena way ilbaxeen moogtahay ina bukhalaan hayna way noogadeeno markaas war xawaaladii aakhiraan heeta badan isii dhiibay buu ku sii qaaday asxaabta rasuulka ridwaanullaahi calayhim ajmaciin lan tanaalu albirra ayada waan maqalaynakum sajir
laakiin maxay naga bedeshay nolosheena maxaad bixisaa maanta maxaad diinta gashatay maxaad aakhiradaada u qadimatay markaa buu nebigu yidhi bakhin bakhin dalika maalun raabix buu nebigu yidhi bakhin bakhin waa kelmad loo isticmaalo qofku markuu shay la yaabo la tacajubo af soomaali dee ma garanayo waxaad odhanaysaan kitaabka riyaadu saalixiinka ee af soomaaliga lagu macneeye baan maalin idhi wanigu kelmaddii bakhin bakhin waa kan af soomaali kan lagu macneeye bal ereyga uu soo qaatay wadaadka ha eegtid markaasuu yidhi kelmaddaa wax u dhowaan waayey buu yidhi ilaa aga mooyaane markaas ereygaasu markaa ku qoray waa kitaabka riyaad saalixiinkan uu alufay uu macneeyey yacquub ina muxuu ahaa ina baabarakhiis allahu naxariista aabihii kelmaddaasuu markaa isticmaalay saxaabigii markaa buu nebigu ku yidhi nebigaa yidhi bakhin bakhin dalika maalun raabix buu nebigu waad ka macaashtay waad ka macaashtay waad ka macaashtay yaa abaa talxa buu nebigu ku yidhi waxaan u arkaa welibana maadaama dadka ehelkaaga kuwa fuqarada beertaa kaxeeyo yaka u qaybi buu ka yidhi waa wixii ugu qiimo badnaayo adduunye uu ninkaa haystay qaraabadiisii intuu u yeedhay ayuu mid walba yidhi inta adiguna intaasoo geedoo timira qaado intaasoo geedoo timira qaado waa timirta ilaa imsaan la manacfasadaa ma taqaanaa quruun baa la manacfasadaa quruun qarni laba qarni bay gaadhaa timirtoo la gurtaa un midhaheega mar geedka timirto hadduu baxana ilaalana kaagama baahno biyo kaagama baahno manaaficdiisana waad guran un markaasaa timirta ilaahay wuxuu geliyey wax alliya waxa cunto bini aadanku ay cunaan fitami ilaahay uu ku abuuray baa la yidhi timirta ilaahay ku kulmiyey timirta waa geedka asxaabta rasuulku ay diinta ku fidiyeen waa geedkii maryam albatuul markii nebi ciise cidlada ku dhashay la yidhi wahuzi ilayki bijidci nakhlati tusaaqit calayki rutaban janiya geedka rux baa lagu yidhi geedka timirta rutab markay ku dul bislaato midhaha ku dul bislaada geedka dusheeda ayaa rutab la yidhaahdaa taasaa markaa ilaahay u soo hoobiyey markay 2-3 cuntana wixii jirkeega nafaqa u baahneed oo halkii baa ilaahay ka soo geliyey waa geed manfaco badan waa nicmadaha u khaaska dadka muslimiinta timirta iyo caanaha geela iyo cadka geelu saxaabada rasuulku waxay jeclaayeen ilaahay dartiiba u bixinayeen innakana maanta waxaa laynaga rabaa inaan isku qiimayno isku qiyaasno warniyo diinta qofkan imsuu cilaaqa la leeyahay ha eegin qofkan dhaqaalihiisa ha eegin qofkan qabiilkiisa ha eegin qofkan masabkiisa waxaan eegaynaa walaalka muslim soo maahayn cilaaqaadka ilaahay uu la leeyahay ee masaajidka uu la leeyahay uu dacwadda iyo diinta uu la leeyahay ayaan qofka bini aadamka ku qiimaynaynaa sidaa darteed ilaahay inaka uu inoo nicmeeyey dadkeenna soomaalida ilaahay baa nicmayna si ilaahay aan ugu mahadnaqno boqolkiiba boqol dad muslimiina ilaahay naga dhigay boqolkiiba boqol dad afkoogu mid keliya uu yahay baa ilaahay naga dhigay boqolkiiba boqol dad isku wada madhaba ilaahay naga dhigay dhul ugu fiican ilaahay uu ina dejiyey diinna ilaahay waa inagu deeqay diin mujtamaca soomaaliga sida maanta diinta soomaalidu u baranayso musaabaqaadka adduunka quraanada marka tartan la galayo dadka ugu horeeya safka horeysa soo taaga Soomaaliba u badan maanta 6 qaaradood ee adduunka ku kala firinay ee ilaahay xigmadiisa ilaahay nagu kala geeyay dadkeeni meesha ay tageen in badan hal lumaan laakiin in badanna masaajid bay ka dhiseen oo islaamnimadii bay muujiyeen oo dugsiyadii quraankii bay ka hirgeliyeen oo gabdhaheeniina shacairka islaamka ay meel walba ka muujiyeen qaaradda Europa iyo North America ummaday naga horeeyay baa galay way milmeen laakiin dadkeeni wali ma milmina waa sidoodii intooda badan ilaahay waa sugay sababtu waa maxay dalka ay ka yimaadeen waa dal diini ay taalo culamo rabbaaniyiin ay joogtay ka yimaadeen dadkii baxay socdayna culamo dhex socotayo culamadiiba u fikirto meel walba masaajid iyo maraakis iyo madaaris baa ilaahay uga furay marka nicmada ilaahay nasiyay han ilaalshanno oo nicmada han kobcinno ahan kordhinno ida kunta fi ni'amin far'aha fa inna al-ma'asi tuzila an-ni'am hadii ilaahay nicmadu ku siiyo baa la yiri
نعمة والله إلى ولا إلى الشدا نعمة معاصد ويزولسا معاصد نعمة إلهي نسيك إلى شنينا دينا شاكرين نقولون نعمة إلهي يقوم بها نقولون كردنا ديار يا هو إن شاء الله هذا خير جعل بين جم وقضاء عنو إنت أساكوسو جبين كل ولادة التبليغ واسكت قانانو تشكيل بكدم بيا ما كدم بيا مد بعد اختر كتجي مركاسا إربدي بمركا الله صوت ديار سيدنا وقتها إربدي يرابتي صوف يربا كهر يسومه سكوش وحير باللغو شباب دنا ماشن إربد اللغو مديا اللغو سي سدا اللغو سي مسحايو وقبو وانا معان سوسامه مركاسو دختر كي بيقول دختر هي أنا قلت كلي يقول دافولة تدمبي يقول دابو يقول markaasaa lagu yidhi may tan dambe ee kulul ayaa dawadu la socotay adkaysa baa lagu yidhi marka waxaan leeyahay dacwadda yaanan culimada kaliya ku dayne wadankan aad timaadeen iyo qaaradan ilaahayna keenay ilaa Namibia iyo maaragtaanay wadamada fogfog iyo Botswana iyo Liberia iyo waa dhawata Liberia midigala soo hadlay war meesha Soomaali badan baa joogtay jamaacada noo soo diray buu yidhi markaasaan waxaan saadid dayax la tagi lahaa oo dad loogu tagi lahaa Soomaali ba loogu tagi lahaa marka horeysa ilaahay ba meel walba ina geeyay xikmadan ku tagnay ama inaka layna qaadan ama inaka wax soo qaadanayna inaka qaadanayna dhahada insha Allah dhahada macna ama inaka layna bedeli ama inaka wax bedelayna goormaad wax bedeli goorma adiga lagu bedeli mawduuca culimada aanu dhaafi ijtimaacaanu imanay inagana labadan cisho waa nii soo hormarnay waxaan idhi geel jira geela uuna wada jirtaa una kala jirtaaye bal ijtimaaca khamiis u dhacaya laakiin 3 maalmood culimadeena iyo dadkeena halka wixii jooga han uga hormarno oo han soo buuqano han ziyaarano si fiican waa noo soo dhaweyseen intaasan anigu kaga baxaya inta kalena culimadan u dhaafay